lacag hal trilyan ah lacag yar maaha wadamada haysta dunida aad ayay u yar yihiin lacagta intaas la eg dowladda Sacuudi Carabiya ayaa maanta laga soo siixday waxaana ka soo siixday Donald Trump sida idin sii sheegay safarkiisa bariga dhexe waxa uu halkaas horta hore carabta uu ka soo dhibsan doonaa lacag aad u badan midda shakhsiyeena waa u dheertaa Donald Trump waxa la guddoonsiin doonaa diyaarad private asagoo ah dowladda Qatar uu ku wajahan yahay ayaa u ballan qaaday diyaaradan dunidu dad haysto waa ay yar yihiin ilaa haddana waxaa la leeyahay ma dowladda Mareykanka iska lahaan doonto mise Donald Trump ayaa shakhsi u lahaan doona sida la saadaalinayana Donald Trump shakhsiyan ayaa diyaaradan loo siinaya oo hantida Mareykanka maba ahan ayaa la leeyahay ninkan horta hore faa'iido tiro badan ayuu kala soo laabanayaa waxa u sii harsan Qatar kadibna imaaraadkana muxuu ka soo jabsan doonaa waa inuu arki doonaa midda kale wiigan dhaqdhaqaaqa dunida siyaasadda aad ayuu u badan yahay maalinta khamiista ah waxaa lagu balansanay waddankaasi Turkiga qaasatan Istanbul waxaana la rabay dagaalka Ukraine iyo Ruushka u dhaxeeyo in la soo afjaro halkaasna Putin ilaa hadda jawaab sax ah waa laga laayahay oo imaan doona Istanbul mise dad ayuu soo diri doonaa mise maba imaan doonaan maanta warkaas ayaa soo dhacay waa mid horta hore wili hubaanti la'aanta dagaalkaas inuu sii socon doono iyo inuu afjarmi doono shaki waqti xaadirkan gelinayso midda kale dunida sidaan saaka idin sii sheegaba isbedelo waaweyn oo kadis ah ayaa dhacay sida waxa ka mid ah jabhadda PKK ee ka dagaalanto waddankaasi Turkiga waa kurdida markii lagu leeyahay waa dad aad u badan waa 40 milyan waxa ayna degan yihiin Turkiga, Iiraan, Ciraaq iyo Suuriya jabhaddii ugu weyneyd oo lafdhabartu u ahayd kurdida ayaa maanta wax dhaaday anaka Turkiga ayaa wax la qaybsanaynaa oo qorigii waa dhigaynaa itiraafkii aan raadinaynaa 40 sano dhowr boqol oo kun oo qof ay ku dhimatayna waa ka tanaasulayna runtii dunida lama saadaalin karo warbixinadooda dhanka dhaqaalaha haddaan u soo laabano sida dunida ilaa hadda la arkayo qaab positive ah ay ku socotaa maadaama ay soo afjarantay dagaalkii dhanka dhaqaalaha Trumpna uu rabo inuu soo afjaro dagaalo badan ninkan horta hore Trump waa nin dunida ee waqti xaadirkan u baahan tahay waa madaxweynihii shakhsiyan aan markii aan fiirinayo waa madaxweynihii ugu fiicnaa JF Kennedy iyo Jimmy Carter kadib waan arki doonaa waxyaabaha isbedelka uu sameyn doono last update-ka igu xirnaada like-ta iyo follow-da iyo share-tana ilaa minna.